عارتي ورجعت الدنيا ما تقاك كرتا ورجعت الدنيا ما تقاك كرتا تذكرنا نقننا دغتي بوكوتي waa tahay dhegeystayaal si aan u ogaano xaaladda doorasho ku sheegta iyo dhibaatada ay u geysatay dadka shacabka ee reer Ogaadeniya ayaa waxaan la xidhiidhnay qaar ka mid ah dhalinyarada reer Ogaadeniya ee ku sugan magaalada Jigjiga su'aashii ugu horeysay aan weydiiyay dhalinyaradaasi ayaa waxay ahayd bal inay ii sheegaan xaaladda guud ee magaalada walaal waa maasan tahay xaaladda guud ee Jigjiga maanta wallahi aad bay u xaqiiqeyd iyadoo ay yani maamulka ka aqriya Jigjiga kililka yani doorasho ay sheegayeen inay dhacayso maanta ay maartay xaaladdu saas marka ay leeyahay shil jiray ama karfamada laga sheegay maanta doorasho tahay haddana ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo dadka ay sameeyeen oo xor ah ama waxbarasho ah ama ganacsi ah ama doorasho ah ma jirin magaalada way xaqiiqeyd baawur badan ma socon aan ka ahayn baawurta dowladda marka xaaladda ugu ka tahay ma ka qayb gashay adigu doorashada walaal waan isku dayay inaan ka qayb galo doorashada maadaama aan ahay arday wax ku bartay magaalada Jigjiga dugsiga sare ee Jigjiga secondary school aan ahay maadaama aan arday hayna doorashada ka galaan saameyn ku yeesho waan ku talagalay inta waan maartay waan ku sii talagalay maadaama dhalinyarada Jigjiga laakiin runtii ma soo gudbin saaka mar aan damaanay inaan ka qayb galo doorashada meeshii markaan tagnay runtii arrin aad u gaarada meesha ka jirtay dib hadda ka shaqeyn kara ma ahayn ما إلا لبس ساعة لبس ساعة وحنا ماشي حضرين ده روح ناسين ولا لها شيء درشة ولا عندهم يعني في ثلاثين ولا فرد ولا شيء ولا لها كده بحال اللي بروح هذا كل شيء 10 ساعات أنا قمنا أيام اللي بالليل 10 كم كان لنا أنت شكله يشكل في مالي بدنا كان فوق حلي صادف المركز عرفت ده أنا حافظ عمي يعني عرفت منه سواء ودعان أو يا معمول المركز واحد درشة اللي حاجات سنتين ولا والله صدقي حقيقة عندنا مليسي أنا بعرف عن كل شيء كرافة إذا عندنا مليسي مدرسة لكن حتى ما كان في يعني بتغاغ ماشي معهم بتغاغ شعب كل اللي هي مش شعب يكون أحمر معهم كلية ماشي حد جري عندما اللي هم عابوا من بوليس يفضل البوليس ماشي جري حتى البوليس يعني الصومال يكون اللي شعب إسلامي ماشي جري ما كان صدقت لا عندنا مليسي وما كان أما شعب ماشي جري أما بدي يعني بدي شعب قضاء ماشي بتغاغ كلها مجرم كلية حقيقة حتى بوليس أما ما ممكن كلية خدمات أيها حدثي عند هاي عكس بحين أي بكي بوليس فيها يبكي ما نقول لك يا عبد أنت كذا ولا وحش على مشكلة إحنا نقول لك أبدا وعلى تاين الشيء عندما نملي سبقة سوي الجود مجاله مسمد بوها مسمينا جار أيها دبعتها سكتت أنت جوي مجاله كمان وكيف نقدر نقرأ مجاله الجزء أنت أكيد كمان هاي يعني كنت مسؤول بيننا عن حتى مثل ملاقة مش تسوي ولا نقعد بحنا أنا ملاقة عن أكيد عن كذا إذا مسؤول بين لكن كمان كده على الإجراء مسؤول بحد مثل عن ضد معارضة أو كتب جري دورشان حقيقة أنا الأرض بان هاي حضرت مثل سيد الجزء مركز سياسة مدح قال مثلا زي توس أو مش عارف مركز حضرت أروح أسأل معي واحد معارضة كلي حضرت على شيء في أنا كان مرة أصلا عائلة فضيلة لكن من دفي لا الكلية حضرت لما يحضر مارك معلم مركز يقع في حكة ويقول لي يا قال لها بسياسة أروح هي يودي هالو waxaad wax nooga sheegtaa bandowga la sheegayo in lagu soo rooyay magaalada Waasee walaalo warta magaranaysaa saaka markii waagu bariyay meeshaan istaagnay baan horta magaranaysaa saacada ku finooday hay marka sabacdi markii aan doorashadii loo diyaar garooday la yiri baabuur aad u fara badan oo magaranaysaa qoladan Ethiopia ay saaran tahay dalka soo garan kara waan gartay marka ma ka warqabtaan gobolada kale ee ogaadeen sida ay wax uga dhaceen ما وان كور قبلنا سيدي نتيجة أيضا ما ولي نقرأ. وان قلت بركة شعب قبل كور محل الجود شعب كدران كشعب كواسي. دران كشعب آدي آدي تاجيني هاي أو من قرنا شيء جا مركي اللي وايبونس كي يسافر قرن كده مركي وايان وحي من قرنا شيء يسافر مركي اللي كان يجي الباقي من عندوش اللي نقرأ. حنقول إن قرأت هيك مقالين كود الشيء قدها وكلا قولنا من قرنا شيء يحضور وكلا الدولار وكلا جودة الواب بندو على نقرأ. وتاي ومحسنتها كواسي waxay ahaayeen dhalinyaro reer Ogaadeniya oo aan waraysi kula yeelanay khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga
teleefankaaga xiriirka radio xurriyo xayooga dhagayso xogta maanan ogeyn oo xirfadda ma aqaan xageeban u mara si aad ugu xidhanto una dhagaysato idaacaddii u dambaysay ee radio xurriyo garaac nambarka Mareykanka ah بلاس هال لح أفر هال تضبع هال شان سدح سديد إبر إبر ياكس سكوت كوا شان هال لبلي إبر هال أفر هذا الربطين اللي جيستو إذا عدتي كوريسي تابو هال shirkadii Patronas ayaa isaga baxday Ogaadeniya waxaana qorma arrinta ku saabsan inoo haysa Foosiye Maxamed shirkadda Patronas oo laga leeyahay dalka Malaysia ayaa shaacisay in ay shaqadii shidaal qodista ee ay ka wada Ogaadeniya ay laga bilaabo 22kii bishan May ay go'aansatay in ay joojiso soona afjarto gabi ahaanba hawlihii shaqo ee Ogaadeniya go'aanka shirkadda ayaa ku salaysan khalkhal iyo cabsi la soo daristay shaqaalaheeda kadib markii uu dhacay dil loo geystay nin ka soo jeeday waddanka Ingiriiska ninkaas la dilay oo lagu magacaabi jiray Johnson Reed ayaanay jirin cid sheegatay balse loo malaynayo inay dileen ciidanka wayaanuhu amaba ay shirqooleen warmurtiyeed ka soo baxay mas'uuliyiinta shirkaddan ayaa lagu cadeeyay in gabi ahaanba mashruuci gaaska iyo shidaal qodista ay shirkaddu ka waday Ogaadeniya si rasmi ah loo soo xiray dhinaca kale wargeys ku hadla afka wayaanaha ee Reporter ayaa qoray in xukuumadda wayaanuhu aad uga xumaatay go'aankaas shirkaddu ku dhawaaqday Patronas waxay shidaal baadhis iyo qodis ka waday Ogaadeniya muddo 5 sano ah laga soo bilaabo sanadii 2005 waxay ka bilowday baadhista iyo qodisteeda Ganaale Qalaafe iyo Walwaal oo wardheer ah loona qeyday balo 11 iyo 15 horaantii June 2007 shirkaddu waxay heshiis la gashay xukuumadda wayaanaha kaasoo sida loo dhigay lagu hormariyay ceelasha jeexdin iyo hilaale waxayna shirkaddu ku bixisay $80 milyan oo deyn horumarisa ah shirkaddu waxay dejisay qorshe dhulka hoostiisa lagu marinayo tuubooyinka qaada shidaalka iyo in saldhig weyn oo laga dhoofiyo shidaalka ay ka samaysatay Djibouti si ay dekadaasi uga isticmaasho shidaal rarista waxayna shirkaddu cadeysay in ay ka baxday lacag dhan $1.9 bilyan shirkadiina waxay haatan kaga baxaysaa Ogaadeniya iyada oo khasaare abid ku dhaca kii ugu xumaa ku jirta waxayna arrintan cashir u tahay shirkad kasta oo isku dayda in ay u soo hanqal taagto khayraadka dabiiciga ee Ogaadeniya ilaa qadiyada Ogaadeniya loo helo xal waara jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa marar badan uga digtay shirkadaha hungurigu kaga jira Ogaadeniya in ay ka fiirsadaan ka hor inta aanay ka howlgelin si ay u badbaadsadaan nafta shaqaalahooda iyo hantida Itoobiya ka dhacayso iyadoo jabhaddu sheegtay in ayna mar aqbalaynin shidaalka laga aqbaado Ogaadeniya inta dadkii lahaa dulman yihiin Simandai gas kuna uderiyai Dulai barwa simandai gas kuna uderiyai Nina wala sugaye galka seftar kala baha